السلام عليكم. ماليزيا waa dal ku yaala koonfur bari Aasiya waxaana ku nool qowmiyado kala duwan sida qowmiyadda Malay, Shiinays iyo Hindiya. Qowmiyadda ugu badanna waa qowmiyadda Malay. Malaysia waa dal israacsan oo nabad ah. Waa meel ay qowmiyado kala duwan ay ku wada nool yihiin, isfahma, iskuna dulqaata. Israacsanaanta dalka Malaysiana bilaash kuma imaan. Waxaa laga soo shaqaynayay tan iyo markii ay Malaysia xornimada qaadatay 1957. waxay ka xubsiibatay isqabqabsiga, jahliga iyo tafaraaruqa. waxayna xooga saartay aqoonta, wax soo saarka iyo tiknoolajiyadda. waxayna gaartay horumar dhaqaale oo aad u fiican. reer Malaysiana ay runtii ku faanaan. dhaqaalaha Malaysia waa kan afraad ee ugu weyn koonfur bari Aasiya, sidoo kale waa dhaqaalaha 36aad ee ugu weyn adduunka. wax soo saarka Malaysiana wuxuu gaarayaa ku dhawaad 400 bilyan oo dollar. Malaysia waa mid ka mid ah dalalka ardada caalamka ugu badan ay waxbarashada u aadaan. taasna waxaa sabab u ah waxbarashada dalka Malaysia oo aad u horumarsan, qiimaha jaban ee waxbarashada iyo nolosha marka loo eego dalalka sida UK iyo Australia, iyo jaamacado aad u heer sareeya oo luqadda Ingiriiska waxbarashada kugu bara. sidoo kale 4 jaamacadood oo Malaysia laga leeyahay ayaa ku jira liiska 200 jaamacadood ee ugu sareeya adduunka. xitaa sumcadda waxbarashada dalka Malaysia ayaa sababtay jaamacado laga leeyahay wadamada horumarsan, wadamada sida UK iyo Australia, inay ka furtaan Malaysia campus ama goob waxbarasho. Malaysia waxay caan ku tahay xeebaha, kaymaha roobka iyo caasimadeeda aadka u horumarsan ee Kuala Lumpur. Kuala Lumpur waa caasimadda iyo magaalada ugu weyn ee dalka. waxay hoy u tahay dhismayaasha taariikhiga sida dhismaha Suldaan Cabdulsamad iyo saldhigga tareenka ee Kuala Lumpur. sidoo kale magaalada waxay hoy u tahay suuqyada waaweyn ee wax iibsiga, xeebaha quruxda badan iyo dhismooyinka dhaadheer sida taawarka loo yaqaano Petronas Twin Towers. intaa waxaa sii dheer, Kuala Lumpur waa magaalada dalxiiska iyo ganacsiga ee dalka Malaysia. laakiin magaalada Putrajaya ayaa ah meesha ay ku taalo xarunta dawladda dhexe. magaalada Kuala Lumpur waxaa ku nool 8 milyan oo qof. dhaqaalaha dalka Malaysia wuxuu ku tiirsan yahay wax soo saarka, warshadaynta, dalxiiska, sayniska, ganacsiga, wax soo saarka beeraha iyo dhoofinta shidaalka iyo saliidda. dalka Malaysia waxaa daris la ah Brunei, Indonesia, Thailand, Philippines, Singapore iyo Vietnam. garoonada diyaaradaha ee dalka Malaysia waa mid ka mid ah garoomada diyaaradeed ee ugu weyn uguna mashquulka badan adduunka, sida garoonka diyaaradaha caalamiga ee Kuala Lumpur oo ah garoonka ugu weyn uguna mashquulka badan ee dalka. sidoo kale Malaysia waxay leedahay 2 dekedood oo ka mid ah 20 deked ee ugu mashquulka badan adduunka. Malaysia waa xubin ka tirsan ururo kala duwan oo caalami ah sida ururka iskaashiga Islaamka, barwaaqo sooranka iyo qaramada midoobay. aan u imaano nidaamka siyaasadda ee dalka Malaysia. Malaysia waa boqortooyo doorasho dastuuri federaal ah oo laga wado boqorka doorasho ayuu xafiiska ku imaadaa, dhaxal ma aha boqornimada. awoodaha boqorkana waxay ku qoran tahay dastuurka, wuxuu rabo iskama samayn karo boqorka. maamulka dawladnimadana waxaa mas'uul ka ah ra'iisul wasaaraha dalka. Malaysia waxay leedahay 100 jasiiradood oo ku teedsan xeebta. Palau Langkawi waa jasiiradda ugu weyn ee dalka. Palau macnaheeduna waa jasiirad, waxaana ku nool dalka Malaysia ku dhawaad 32 milyan, taasoo ka dhigaysa dalka 43aad ee ugu dadka badan adduunka. diinta Islaamka waa diinta rasmiga ee dalka, laakiin dadka aan muslimka ahayn waxay xor u yihiin inay ku dhaqmaan diimahooda. waxayna diinta Islaamka soo gaartay Malaysia intii u dhaxaysay 1200 ilaa 1300. diinta Islaamka waxaa si tartiib ah u soo bandhigay ganacsato Carbeed iyo ganacsato Hindi ah. ka hor inta uusan gumaystaha qabsan Malaysia waxay caan ku ahayd ganacsiga, waxaana u soo hijroonayay dadkii ka soo barakacay dalkooda. laakiin nasiib daro 1511 waxaa u bilowday xilligii gumaysiga oo waxaa qabsaday Boortaqiiska.
Boortaqiiskana waa gumaystihii reer Yurub ee ugu horeeyay oo qabsaday Malaysia, isagoo qabsaday magaalada Malacca oo ahayd meel istiraatiiji ah, ganacsiyo badanna ay ka socdeen. Wixii intaa ka sii dambeeyay waxaa xigay silsilado gumaysi ah ilaa intii laga soo gaarayay 1957. 1957 waxaa xurriyadda qaatay Federation of Malaya. 1963 waxaa xurriyadda qaatay Sabah, Sarawak iyo Singapore, waxayna ku biireen Federation of Malaya si ay u sameeyaan Federation of Malaysia. Malaysiada cusub, Malaysiada aan maanta naqaano. Laakiin 1965 Singapore waxaa laga eriyay Malaysia arrimo siyaasadeed iyo isirba, waxayna Singapore noqotay dowlad madax bannaan. xurriyaddii kadibna dhaqaalaha Malaysia wuxuu kordhay celcelis ahaan 6.5% sanad walba ku dhawaad 50 sano. Hadda Malaysia waa dal aad u horumarsan ka bulsho ahaan, dad wax bartay, dhaqaale horumarsan, qowmiyado kala duwan oo hal dal ku wada nool. Intaaba waxaa laga heli karaa Malaysia.